الرحمن الرحيم marka koobaad waxaan salaamayaa madaxda qaranka oo hogaaminayso marwada qaranka Ina Maxamuud Jirde waxaan salaamayaa golayaasha wasiirada oo hogaaminayo halka kamaar oo hogaaminayo wasiir Cadaani waxaan salaamayaa hogaanka sare ee xisbiga oo hogaaminayo Mujaahid Muuse Biixi Cabdi waxaan salaamayaa haweenweynaha dhalinyarada cuqaasha culculus ee halkan fadhida waxaan salaamayaa xildhibaanada qaranka dhamaantiin waxaan idinku salaamayaa salaan gacantooyo salaan qiimo iyo qadarin badan waxaan jecelahay anigoo hadalkayga soo ururinaya inaan ku soo koobo ka bilaabo laba eray oo aad la weydiiyo waan jecelahay ka soo ka bilaabo hadalkayga ah kow rooday maxaa wadani ka keenay maxaa se kulmiyo ku keenay waxa horta wadani waxa joogay dadkaygii waxa la joogay dadkaygii maanta kulmiyo waxaan u imid dadkaygii waxa jooga dadkaygii waxaan kamid ahay laxanka xooga loo garaacayo maalmahan dambe jira ma aha aniga ka kulmiyay keenay waxaan kamid ahay tiimka faraha badan loo bariyo galbeed Somaliland ka soo jeeda ayaan aniguna ka ahay Central of Somaliland laakiin laxanka qabiyaaliga ah maanta suuqa yaala ma aha ka kulmiyay keenay hadde waxa iyaga wadani ka keenay umba anigana wadani iga keenay taas waa maxaa wadani ka keenay maxaa kulmiyo ku keenay waa su'aashay dadku weydiiyaan iyaguna isweydiiyaan waxa kulmiyo ay keenay musharaxaygii madaxweyne ku xigeenka Axmed Muumin Seed oo halka fadhiyo musharaxii xamuulka ahaa maalintaan u xaq soorayay aan ogaaday inuu musharaxa madaxweyne ku xigeenka Axmed Muumin Seed yahay ka xaq u leh aan isku dayay inaan noqdo xaq sooraha xisbiga wadani su'aal baa qalbigayga ku soo dhacday hadda baad rooday jeceshahay inaad xaq soorto maxaad Mujaahid Muuse Biixi Cabdi Cabdiraxmaan Ciro ugu xaq soori laadahay thank you dagano waxa weeyaan oo ugu xaq soori laadahay ninka calanka xaq ku leh ciidda xaq ku leh adigoo rooda xaq ku leh hablaha Soomaaliland iyo qof kastaba xaq ku leh maxaad xaqiisa ugu soori laadahay Cabdiraxmaan Ciro oo adigu waxa aad garanayso aan garanaynin markaad ugu yartahay qaraabada Hargeysa anigu aad garanayo isagu garanayn ilaahay baan ugu mahadnaqayaa inuu xaqay garansiiyo oo xuquuqda mujaahidka Muuse igu leeyahay inaan garto ilaahay baan ugu mahadnaqayaa waxa kale oo idin sheegayaa sidaydaba waxaan ahay dhalinyarada xooga u taageerta ragga ku suntan halgankii qarankani lahaa waliba markay dadku arkaan anigoo xoog markaan mujaahidka arko sida u eegaya oo leh muxuu ahaayeen ninka mujaahidka waan istaagaya waayo waxa kaliya aan tari kara waxa weeyeen aan moralka u dhiso dabadeedna waan ku soo dhawaada gacantan qabta gacantan ka dhunkada waxaan aad adeer waa idin ognahay inaa wax noo tarteen mujaahidka iyo abaalka uu qaranka ku leeyahay anigu ma sharaxayo aniga abaalugu ma lehe dhammaanba 30 jirada qaranka Somaliland abaalku ku leeyahay waxaan farayaa ninkii 30 jirkiisii inoo hiiliyay waajib ay idinku tahay 30 jirada qaranka Somaliland inay u hiiliyaan haday isa garan waayaan waa xuquuq hablaha reer Somaliland aniga iyo intii xilliga ay leekay 1988 runtii qaarna jir baa gashay qaarna madaxay xiirteen annagu maanta 3 kalar baanu marsanaa madaxa ilaahay ka soo Muuse Biixi iyo dhigiisa iskale haddaan taa garan weyno waa ayaan daro ku dheer
garanaya abaalka muuse ku leeyahay oo Soomaaliland meel kasta jooga danacasna loo sheegi maayo taasaan kaga gudbaya waxaan ku darayaa dadku waa wada dardaaransan waxaan jecelahay maanta inaan erayo kaftana halkan ka idhaahdo erayada kaftanka wax weeyaan waxaan la kaftamayaa aniga iyo dhigaygaan la kaftamaya waa habla intaan isku gadahanahay iyo deeynamada ku daro oo dhalinyarada haweenkaba waxaan la kaftamayaa dalka inta kala qiimeeyni ma saarna se waxay qiimeyntu saaran tahay madaxweyne maxamed xaaji ibraahim cigaal iyo muuse biixi cabdi wasiir iyo madaxweyne isku lahaayeen madaxweyne maxamed xaaji ibraahim cigaal iyo muuse biixi cabdi ninka abtiyaal wanaagsan doorashada dabadiibaan aniga iyo dhigaygu ku kaftamaynaa madaxweyne maxamed xaaji ibraahim cigaal markuu tartanka doorashada u soo istaagay abtiyaashii dhab libaax bay saareen intay dhiseen bay dhab libaax saareen waliba muuse biixi abtiyaashii waxaan eegi doonaa inay dhab suldaan saaraan iyo inay siigada uga baxaan doorashada dabadeed baan ku tartamayna waxaanu kaftami doonaa gudoomiye muuse biixi cabdi wuxuu noo sheegaa inuu yahay nin reer hawda oo ka soo jeeda gobolka hawd degmada Balligubadle aad buu ugu faanaa wuxuu raada waxaan ahay nin reer hawda waxaan ahay nin reer Balligubadle gudoomiye doorashada dabadeed inuu Balligubadle ku sii faano iyo inuu caynaba ku faanana doorashada dabadeed baanu kaftami doonaa waxaan ku darayaa mujaahid maxamed kaahin axmed oo anigu aan garanayo qiimaha uu leeyahay oo isaga iyo dhigiisa markaan xasuusto ama laga sheekeeyo wallahi waan ilmeeyaa wuxuu hogaamiyaha labaad ka yahay xisbiga kulmiye xirsi cali xaaji xasan waa hogaamiyaha xirsiyare waa hogaamiyaha xisbiga wadani mujaahid maxamed kaahin axmedna waa gudoomiye ku-xigeenka labada xisbi kala hogaaminayaan waxaan la hadlayaa ragga iyo hablaha aan garanayaa hadday kala doortaan waxa igu ballanayaan maxamed kaahin berberaw raro